garaad jaamaca garaad cali oo u digay dadka labada dhinac gunnada ka qaadan jiray kuwaas oo rabaan in ay khalkhal amni iyo mid siyaasadeedba iyo mid isimada iyo garaadada shuruucda iyo kala dambaynta maamulka SSC in ay burburiyaan garaadka isagoo leh dhegaleey wax maqal daawasho wacan intaanu idiga dhex gelin subscribe iyo like iyo followga fadlan siiya oo meel fog gaarsiiya videogan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halloo caddeeyo inaan xildhibaan la qorayn mid horena aan maandhay la siinayn mid cusubna aan la qorayn aynu u caddayno tolkeen eeddana aynu iska reebno xalaal iftiin baa la qashaa wasala allahu nabiyana maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh bismi illah wabihi nastaciinu calaa umuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaan idinku yeeray in aan ka hadlo arrin deganaansho la'aan ku abuurtay reer SSC arrintii 17 xildhibaan ee Puntland loo qorayay arrintaa hadalkaygii xalay hadal jeedintii xalay ee aanbabixinta ugaas maxamed ugaas axmed waxaan uga reebay waxaan la sugayay mowqifkayga iyo oraahdayda in aan shirkii isimada iyo maamulka ee garaajaan garaas Ismaaciil ku baaqay in lagaga tashado lagu wada hadlo ilaa yaduu ku roon yahay wax lagu midaysan yahayna laga soo saaro laakiinse maanta markaan arkay go'aamo hordhaca oo isimadu ay ku sheegayaan mowqifkooda waxaa khasab noqotay anna inaan mowqifkayga aan ka qabo inaan tilmaamo ta koowaad aan caddeeyo kow maamulkan SSC khaatumo ee aynu samaysanay reer SSC khaatumo ay samaysteen looma igman awoodihiisa kama mid aha ilaa hadduu ku roon yahay xulista baarlamaan maamul kale inooga qayb galaya xulistana looma dirin ansixinta iyo u kordhinta waqti 17 hore uga mid ahaana looma dirin sabab maamulka arrinkaa loola aado oo la yiraahdo maamulkan u dhiibaynaa ma ay jirto maamulka khaatumo waxaa loo igmaday hagista siyaasadda khaatumo iyo arrimaheeda inuu ka taliyo oo ku shaqeeyo arrintan baarlamaanka Puntland intaynaan maamulka samaysan waxaa xuli jiray isimo haddeerna waxa laga sugaya inay soo xulaan waa beelo beelahana waxaa madax u isimo anigu aan ka mid ahay xulista 17 xildhibaan ee loo dirayo maamulka Puntland iyadoon la wada hadlin oo shirweyne dadkii Puntland samaystay ayaan isugu imaan la xulayo waxay baabi'inaysaa xildhibaanadii hore ee dhisay maamulka khaatumo oo dhibaato ku tahay ilaa hadduu ku roon haddii muddo kordhin loo sameeyo 17 hore oo joogayna waa la mid dadka yaan la idinku soo dhuuman in la yiraahdo 17kii hore fadhiyay ha inoo fadhiyaan iyadaan dhibaato keenayni in la xulo iyo in maandheed cusub la siiyaa waa isku mid annaga isimada ah yaa shacab weynaha reer SSC waxay naga sugayaan miyaan ka noqonnay February 6deedii go'aankii aanu u sheegnay ee 800 ee qofna u dhimatay dhowrka kun ee qofna u dhaawacan yihiin mar haddii la isla sugi waayey go'aankii inaan anigu kayga sheego lagama maarbaan bay noqotay dhagalaay maqal anigu horena umaan xuli jirin baarlamaan haddeerna xuli maayo waxaana walaaladay iyo saaxiibaday aan leeyahay yaynaan ku daba dhuumanin maamulka SSC khaatumo oo bombo ganjala yaynaan gacanta u geline sidaasoo kale ama wadar ama waaxid aynu u caddayno mid hore u joogayna inaynaan u kordhin waqtiga mid cusubna aynaan xulayn aynu u kordhino walaaladeen reer Puntlandna jahwareerka aynu ka dayno oo waxay ku tashadaan aynu siino anigu shakhsiya ahaan waxaan jeclaa muuqatana inay dantu ku jirto Puntland iyo SSC ba ugu jirto inaan doorashooyinkan iyo waxaan dib u dhiganno dadkii budigii hore Puntland wada dhistay ee haddeer SSC iyo Puntland inay isu yimaadaan
laga wada hadla sidii loo dhisan lahaa laba dowladood oo walaala ah oo difaacu ka dhaxeeyo oo dhaqaaluhu ka dhaxeeyo arrinta la fool eryayo dan Puntland uma aha SSC-na dan uma aha haddii SSC ay kala kacdo oo kala shakido oo maamulkeedu uu burburo oo ku burburo 17 xildhibaanna dan uguma jirto Puntland marka reer Khaatumow nin ani yiri rag iska reeb maamul ku riixi maayo oo horeba uma qori jirin laakiinse aniga leh xildhibaanaan qorayaala ma jiro horena uma qori jirin hadeerna qori maayo walaalahayna waxaan ka codsanayaa gacaliyayaalow sidaas oo kale ama wadar ama waaxid ha loo cadeeyo inaan xildhibaan la qorayn mid horena aan maandhay la siinayn mid cusubna aan la qorayn aynu u cadeyno tolkeen eedana aynu iska reebno xalaal iftiin baa la qashaa wa sallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam